السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا ومهتسنتيه. قال كان ما أنت وحن ربعنا ندخل وذاقو حلبان كترسن كونغرس كمريكان كه أو ريبابليكانا أيا وحا وصوبان دقي شرعي لوجو مقعدري Taxi Payer Protection and Somali Accountability Act 2026. شرعيا أيا وحا ودقيا إن دولة مريكان كوه أي لحساب تنتو دولة الصومالية إسلامركانا لعجها أي سيسو لجوجيو haddii lagu helo musuqmaasuq amaba deeqihii la siiyay in laga weecinayo meeshii loogu talagalay sidoo kalena waxa la socdo shuruudo dhowr ah oo ay la mid tahay sidoo kalena in viisayaasha loo diido mas'uuliyiinta iyo qoysaskooda lagu helo inay musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin sidoo kalena waxa ku jirta in dadka Soomaalida ah ee lacagaha ka musuqmaasuqay Mareykanka oo Soomaaliya u baxsaday qofkii soo sheegay in lacaga abaalmarin ah la siinayo bal sharcigan iyo qodobada kala duwan ee ku jira ayaan rabaa inaan idin la wadaago Mareykanku ay siin jirtay wadamada caalamka oo deeq ahaan loo siin jiray waxa uu qayb ka ahayd barnaamijkiisii in la yareeyo lacagta dawladda Mareykanku ay qarash gareyso waxa uu yiri maxaan anagu lacaga ugu bixinaynaa wadamada caalamka inaga ayaaba u baahanba wadanka ayaa deyn fara badan lagu leeyahay marka hadda sharci cusub oo waxa jira xildhibaan ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo Republican ah lagana soo doorto gobolka Texas uu soo bandhigay toddobaadkii hore sharcigan waxa la yiraahdaa HR 8334 Taxi Payer Protection and Somali Accountability Act of 2026 waa ilaalinta canshuurta ay bixiyaan dadka Mareykanka iyo xeerka la xisaabtanka dawladda Soomaaliya ee sanadkan 2026 waxa soo bandhigay xildhibaan la yiraahdo Ronnie Jackson oo laga soo doorto degmada 13aad ee gobolka Texas xildhibaankan markii hore waxa uu ahaan jiray dhakhtarka qaaska ah ee madaxweyne Trump afartiisii sano hore ee wadanka uu madaxweynaha ka ahaa markii Trump xilka uu ka degay kadibna xildhibaannimo ayuu u tartamay 3 bishii January ee sanadkii 2021 ayaana xildhibaannimada loo dhaariyay haddaba marka xeerkan waxa uu soo bandhigay toddobaadkii hore oo Congress-ka ayuu hadda hor yaala 21kii bishan ayuu soo bandhigay waxaana xeerkan uu yahay marka xeer la doonayo in lagu la xisaabtamo dawladda Soomaaliya isla markaana deeqaha la siiyo hadii laga weeciyo meeshii loogu talagalay in dawladda Soomaaliya lagu la xisaabtamo marka sharcigan oo sidii sheegay ah Taxi Payer Protection and Somali Accountability Act of 2026 waxa muhiimadiisu ay tahay in dawladda Soomaaliya laga joojiyo oo dawladda Mareykanka ay ka joojiso caawinaadda ay siiso hadii shuruudahan qaaska ah la helo waxana la doonayaa in la dhaqan geliyo qaabab kala duwan oo lagu ilaalinayo laguna soconayo lacagaha Soomaaliya loo diro sidoo kale halka ay marayaan lacagaha xawaaladaha ama dadka Soomaalidu ay diraan sidoo kalena waa ay ku jirtaa marka qodobada ugu muhiimsan ayaa waxa ay kala yihiin oo aan rabay inaan idin la wadaago toddobadan qodob ee soo socota qodobka koobaad ayaa waxa uu yahay caawinaadda ajnabiga ah waa caawinaadda dawladda Mareykanku ay siiso dawladda Soomaaliya waxaana sharcigan uu soo jeedinayaa in gabi ahaanba la joojiyo midda xiriir iyo sidoo kale tan dhaqaale ama caawinaad oo la siiyo dawladda Soomaaliya hadii aysan sameynin ilaalin ku filan oo looga hortagayo in deeqaha Mareykanku uu siiyo Soomaaliya aan laga weecin meeshii loogu talagalay marka hadii lagu arko in deeqaha Mareykanku uu siinayo Soomaaliya laga weecinayo in meeshii loogu talagalay ama dadkii loogu talagalay aysan gaareynin markaas waxay tahay in laga joojiyo deeqaha Mareykanku uu siinayo Soomaaliya sidoo kale waxa qodobkaasi hoos imaanaya in la joojiyo caawinaadda uu Mareykanku siiyo dalka Soomaaliya hadii la xaqiijiyo in lacagahaasi si qaldan loo isticmaalay ama sidoo kale meeshii loogu talagalay aan la geynin sidoo kale qodobkan waxa hoos imaanaya in caawinaadaha la siiyo organisationada ama NGO-yada caalamiga ah in aan dhinaca dawladda Soomaaliya loo marin oo iyaga si toos ah loo siiyo maadaama hadii dawladda Soomaaliya musuqmaasuq lagu arko qodobka labaadna waxa uu yahay in la xanibo lacagaha loo diro Soomaaliya sharcigan ayaa sidoo kale waxa uu dhigayaa marka Congress-ka uu sharcigan meel mariyo madaxweynaha waxa looga baahan yahay in uu qaado tilaabooyin looga hortagayo lacagaha shakhsiyaadka ama sidoo kale hay'aduhu ay u diraan Soomaaliya
in lacagahaasi haddii shuruudahan lagu arko gabi ahaanba lacagahaasi la joojiyo. Shuruudahaasi waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo lacagahaasi in aysan ka baxaynin barnaamijyada dowladda Mareykanku ay bixiso, waa barnaamijyada dadka lagu caawinayo sida social security iyo lacagahaasi in aysan lacagahaasi aan laga diraynin. sidoo kalena waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo in qofka lacagahaasi diraya uusan dowladda ka helaynin Mareykanka wax caawinaad ah. waxaa sidoo kale jirta qodobka saddexaad uu yahay in la caddeeyo lacagahaasi inaysan ka faa'iideysanaynin dowladda Soomaaliya ama sidoo kale ururada argagixisada ah. waa kii riboodkii wargeyska uu qoray leeyahay lacagaha laga diro gobolka Minnesota ururka Al-Shabaab ayay si toos ah gacantooda u galaan, walow arrintaasi weli aan caddeyn loo helin. qodobka saddexaad waxa uu yahay in reporting iyo weliba accountability in dadku ay soo sheegaan lana xisaabtamo. wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxaa looga baahnaan doonaa in uu Congress-ka ka siiyo warbixin amaba cadeymo la xiriirta in Mareykanka lacagaha uu u diro Soomaaliya, isla markaana sidoo kale lacagahaasi sida loo xawilo amaba loogu diro dowladda Soomaaliya, iyo sidoo kalena dadka ka faa'iideysanaya ee saraakiisha dowladda Soomaaliya ama sidoo kale ururada argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda ayaa arrimahaasi oo idilna looga baahan yahay. qodobka afraadna waxa uu yahay visa restriction, in xanibaad dhinaca viisayaasha ah lagu sameeyo. sharcigan waxa uu dhigayaa in qodobadiisana ka mid ah in xayiraad dhinaca viisayaasha ah lagu soo rogo mas'uuliyiinta iyo weliba kuwa hore ee dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo ku lug leh musuqmaasuq amaba si qaldan u isticmaala deeqihii Mareykanka uu siinayay Soomaaliya. waxaana sidoo kale xanibaadahaasi ay saameyn karaan qoysaska u dhow mas'uuliyiinta dowladda, kuwa hore amaba kuwa hadda jooga ee musuqmaasuq lagu helo. qodobka shanaad ayaa sidoo kale waxa uu dhigayaa in xanibaado ama xayiraado dheeraad ah lagu soo rogo muddo 60 maalmood gudahooda. ayaa sharcigan marka la meel mariyo madaxweynaha waxaa looga baahan yahay in cunaqabatayn uu ku soo rogo mas'uuliyiinta ajnabiga ah ee lagu helo inay ku lug leeyihiin musuqmaasuq oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo gacan ka geysta in deeqaha Mareykanka uu siiyo Soomaaliya ay u weeciyaan meel aan ahayn meeshii loola jeeday ama dadkii loogu talagalay in la siiyo u leexiya. qodobka lixaadna waxa uu yahay in abaalmarin loo ballan qaado dadka soo sheega dadka Mareykanka ay musuqmaasuqeen ka baxsaday oo Soomaaliya tagay. wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxaa ogolaansho loo siinayaa in ay wasaaradda arrimaha dibaddu ay soo bandhigto abaalmarin la siinayo qofka soo sheega warbixin la xiriirinaysa dadka amaba qeexaysa dadka iyagu shakhsiyaadka ah ee ku lug leh sidii loo heli lahaa musuqmaasuqa intay Mareykanka ay musuqmaasuqeen, isla markaana sidoo kalena baxsaday. qofkii soo sheega in abaalmarin loo ballan qaado halka qofkaasi halka uu ku sugan yahay iyo sidoo kale lacagihii uu la baxsaday sidii loo heli lahaa. waxaana ay noqon kartaa lacagta ugu badan ee abaalmarin loo siin karo shakhsiyaadka soo sheega dadka Mareykanka intay musuqmaasuqeen lacaga fara badan baxsaday halka ay ku sugan yihiin in la soo xiro amaba lacagihii ay la baxsadeen la soo qabto ilaa iyo $250,000 oo dollar ayaa lacagta ugu badan ee loo ballan qaadi kara ay tahay. marka sharcigan waxa uu yahay sharci hadda Congress-ka la hordhigay gudiyada ku lug leh markay ansixiyaan kadib, oo Congress-ka haddii uu ansixiyana markaasi kadib ayaa sharci uu noqonaya. sidaas darteed ayaa hadda xildhibaankan ilaa iyo 4 xildhibaan oo kale ayaa waxa la leeyahay waa ay ku wehliyaan walow magacyadooda aan la sheegin. Congress-ka ayaana la filayaa in sharcigan la hordhigo, haddii ay ansixiyaan markaasi kadib madaxweynaha ayaa saxiixaya, sidaasi ayuuna sharci ku noqonaya. marka waxaan rabay inaan idila socodsiiyo sharcigan loogu magac daray Taxpayer Protection and Somalia Accountability Act of 2026 oo xildhibaankan uu Congress-ka soo hordhigay, isla markaana dhowr aqrin marka uu maray kadibna ay Congress-ku ka doodi doonaan. marka waan arki doonaa haddii labada aqal ay meel mariyaan madaxweynuhuna uu saxiixo.